السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا سأنا من غيرتنا ضاوس إلى تمر بعد ضافات دنيا كجوكتان مركلة يا مقال قرح بدن وصاحبك نسكبوي هل كاد يقدر ون سوا برتي يوتيوب كانوا كلها ندوقش ميديا فضلا يعني كعصن إن سبسكرايب صارتان كدمنا قبل كعد فرطان سياد أو نقطة مرة بضع وضع وجهرية ما توحن رمانين إذا لو وداعنا مقال كوساب سنتر نولد كات فنان كوين إذا إحدى النور شيء قول والبول جارع inay ka dambayso dadaal badan oo la sameeyay rafaad walba aad noloshaada ku aragto ogow raaxa ka dambaysa deexda nolosha waa fanaan la kulmay dhibaatooyin badan oo dhanka nolosha ah waxa uu soo galay fanka waxa uu la kulmay dhibaatooyin fara badan sida midabkoor iyo haybsooc iyo arrimo badan oo aan la soo koobi karin kamid noqoshadiisa ciidanka booliska Soomaaliyeed qaxi Muqdisho iyo noloshiisa meyga sida arrin raacmadiisii iyo biyo arooridii iyo cunto karintii rafaadka badneed waxa waraysigan ka soo qaaday deexda nolosha wiil dhalinyaro u dhiirigeliya ah magaciisuna waxa weeye Maxamed Cumar bal haddii aad is leedahay hadda nolosha aad ku jirto rafaaday kugu tahay oo aabaha cadaan iyo madow xaartu ku soo agdhigi karin ama aad ahayn nin dhalinyaro wuxuu rabo oo ku riyoodo ama hamiyaba oo markii isla markii ahayn ogow bari baa heli doontaa dadaal haquusan cibaadana ha lagu dadaalo walaalayaal inaan inteena wax kala bilaabinayno ku bilowno in ababin barbaarintaadii xageed ku dhalatay qoyska duruuftu ay haysatay markii aad dhalatay maaragtay maadaama ugu weyn xaafadda laftaada wax yar nooga sheegay duruufiyaad ku kortay iyo kuwaad ku dhalatay wallaahi aniga horta waxaa iga weyn laba wiil oo familka ah waxaan u ahay wiil saddexaad walaalahay midna waa nin aad u shaqeeya oo maxaa la sheegay dadkan hantida sameeya ah midna waxaa waaye yurubtaas ku dhex lumay marka saddex ah waxaan ku dhashay meel la yiraahdo meel u dhow ceel macaan oo la yiraahdo Jiricisne oo tuulaha u baadiye ah oo ka tirsan Shabeellada Dhexe halkan markii la joogo Shabeellada markii Shabeellada Dhexe Jiricisne la ku dhashay waxaa la igu dhalay jabad hoostiis dadku waxay yiraahdaan Soomaalidu waxay u badan yihiin waxay ku dhahayaan ma jiro qof sheeganaya nolosha saxda ah oo ka dhunta aniga jabad hoostiis oo hooyaday iyo ayeeyaday Allah u naxariistay waxay ku lahaayeen maqaayad weyn oo maxaa la sheegay safarada baadiyaha markii cadale iyo wada dheer oo loo maro halkaas ku taala jirta cadale cilmaana la dhaxbaxa toosan loo baxay markaas cadale waxa loo dhaxmari jiray wadadeena loo mari jiray marka maqaayad weyn badan oo maxaa la sheegay haweeney isugu yimaadaan dadkoo dhan oo lagu nasto wax lagu cuno waxay maxaa la sheegay familkii lahayd halkaas ku jira halkaas soo dhaafsan family ظروف نوعية كتير مركبة واحد كسر كرتي ظروف وناكسن والله بس هل التلفون عنك إنجليزي عنك صوت بلشوا محمد وحدوك هذا قف حمل شوقة محل شيء ولا شيء قريب من الظروف معهن بين وشيء يعسكته horta xilliga aan yaraa maxaa la sheegay halkaas aan ku noolaa waa kulliba iska yaraa laakiin oo baa noloshan kama sheekeyn karin waxay ahayd laakiin sheena anaga aniga ahaan waxaan ku soo kornay duruuf adag iyo xaalad adag maxaa la sheegay ma ahayn wiil maxaa la sheegay familkiisa haystaan hanti aad u badan oo qani ah maxaa la sheegay cad iyo madow wuxuu doono la siin karo ma ahayn markaa yaraa oo duruuf badan aan ku soo koray duruufta iyadu iska jirta dana magaaladeeni xamar waa adduunka qof aan ogeyn waxaa ka dhacay dagaalo runtii culus oo dhan kastaba leh oo waxaa ku badnaa qaxa in maalinba maalinta ka dambeysa la qaxayo laba bil xamar haddii la joogo dagaalo dhacayaan la qaxayo laba bil dagaal qabiileed dagaal kale oo maxaa la sheegay dagaal waxaa jirteen maxaakiimta laho dagaalo adiga maxaa la sheegay dowladda iyo marka dagaal diimeed wax walba ka dhacay markii dambe adiga mar walba waxaan u qixi jirnay meesha markaas aan ku dhashay Jiricisne oo
noloshiidaan ku noolaan jiray ugu dambeyn meeshii waxaan ku noolaaday waxaan u malaynaa nolosheeda intii markii qaangaarnimada markii inta ka horeysay nolosheeda inta ugu badan waxaan ku noolaa halkaas anoo nin weyn wax gartaan xamar soo galay oo reebiyaha markii laga hadlaayo halkaas marka maxaa yeelay baadmi waxaan ku qaatay nolosheeda inta badan waxaan ilaalin jiray ari marmarka qaar maxaa la ii sheegay waxaa waaye ariga waa ari baan lahayn waxaa jira meel ceel macaan la dhaho iyo jira saley waxay isku jiraan 2 saacadood markay ugu yar tahay ama ugu badan tahayba waxaa la sameynayaa biyaha annagaan isticmaalno oo lagu isticmaalo tuuladana ma lahan halka ceel ma lahan waxaa waa qasab in dameerla inta la waraaco laga soo arooro biyo halkaas la keeno si loo noolaado maadaama qaxwi waxay gurigii faamilkeeni oo walaalahay aniga oo hooyaday way shaqayn jirtay muqdisho joogtay oo dagaaladii dhibaatooyinka badan ka dhacay inay ku dhex nooladeeda marka laakiin aniga iyo walaalahay oo aniga aan markaas ugu weynaa maxaa yeelay wiilkayga weyna ma uusan joogin halkaa kii kale waa markaas yurub ku jiray aniga marka waxaan ku qasbanaaday aniga walaalahay waxaa dhacday guriga ayaday waxaa jirtay abtiyaal iyo habaryaryaal carruurtay dhaleen way nala noolaayeen ayaguna waan badnayn waa ayeeyo iyo ilmahay dhashay ilmahaysii dhaleen oo soo wada qaxeen guriga isugu yimaadeen waxaa marka waajib ah in qof walbaba xubin halkaas ku lahaado haddaanu qofku xubin halkan ku lahayn waxaa laga yaabaa in maxaa yeele waa iska taqaanaa markii dhalinyarada waalid badan aanu ku dhex jirin dhaqankooda iyo hagarta dhex iman karta aniga marka waxaa ila joogta hooyaday dhashay gabar iga yar iyo 2 wiil oo basi yar waana malaynayaa markii aniga laga rabo waa carruurta ugu yaryar oo guriga ku nool waxaa ku qasbanaada marka inaan barto sida cunnada loo kariyo si aan xil gaar uga qabto guriga qayb ka mida oo si ay walaalahay u noolaadaan oo maxaa la ii sheegay inta ugu badan aanan hadhow dib gaar u dhicin marka waxaa noqday waxaa xilka la ii istaaray inaan cunnada kariyo quraac iyo qada iyo casho weliba qada iska daa maxaa yeelay qada inta badan lama cuni jirin marka quraacda iyo cashada inaan aniga kariyo waa xilka ii saaray sababtoo ah markii hore waxaan arigaan raaci jiray oo xilalka lagumanaa kasoo qabtay guriga marka hore arigaan raaci jiray maadaama xoogaha ayaa xamar aan soo ahaan waa isqaabil weyday noloshii ariga raacista ahayd way u adkaatay saaid baan ku dhibtooday waana wiil iska maskiina hooyadii suuray jirta ahaa ba kasoo gooyay waxaa laygu yidhi biyaha aroorta biyo arooristan waxaa igu adkaatay maxaa yeele maskiina أكثر من يبيع هذا التليفون. تمام. أنا يلا مركز يقدر يطور عليه أنا نبدأ كنا نسوق وأنا قاعد بوس كسجوجو محل بوس كمركي محل عيش بوس ودي مركز جوتو حبة وحي مهم قاعد جوجو محل بوس كمركي محل عيش بوس ودي مركز جوتو حبة وحي مهم قاعد يصير ناس مركز sababta u dhibanay oo kulalkaas aan kula hadalay ma aha hadda halkan gaas aan isticmaalay xitaa bujukan isticmaalay ma aha halkaas qoriyo iyo dhagax maana inta la isku shido maxaa la ii sheegay dhexdaha marka qoryahan waxa ogaataa marka cunnada adiga karinayso xilkaas u wareegto waxaa ku qasbantahay inaad dhexdid oo baadiyaha duurka aadid oo qoryihii aad soo gurtid oo qoryihii aad bushaad kusoo xamaasho guriga aad keento oo maxaa la ii sheegaa kadib qoryahaas cunnada ku karis marka dhanka cunno karinta kaloo sheegtay inaad aroorka dooni jirtay biyaha soo dhaamin jirtay biyaha qaban jirtay صح horta biyaha waa dhaamin jiray laakiin markii hore ahayd kadib waa maxaa la ii sheegay aniga garbaha markan halkaas ilaa hadda way kala baxeen kala go' waxa oo la dhahaa qaba way kala baxsamayaan marka waana zaid baa uga daayira hadaba inta kalma soo jabay wax badan ay taageen marka waxaa la dhahay macquul maahan kan xilka kam qaba karo laakiin waxaa lagu noolyahay guriga boqortooyo oo kale guriga markii boqortooyo markii lagu noolyahay waa in maxaa la ii sheegay qasriga qof haduusan meel uusan howl ka haynin wuxuu noqonayaa sida kabaadintiga
marka صح واي maslaxadu sideedaba waxaa waaye meel ama ku muuqan ka wanaagsan marka waxaynu nahay isku wada xidhan oo maaragtay inta badan dhalinyara faamiliyo badan oo maaragtay xambaaraan kasoo jeeda marka waa in qaybtiisa kasoo dhalaada waxaan rabaa inaan hore ka socono oo waxaan rabaa inaan markaa ila weydiiyo sideed xagee kaa soo gashay aragtidana inaad fanaan noqotaa ma waxaad ku riyootay yaraantaadii oo aad ku habiyi jirtay mise markaad weynaatay bay noqotay hobbi cusub oo aad heshay halkeed ka soo bilowdo se u bilowdo wallaahi aniga waxaa waa horta dadka inta ugu badan dhalinyarada ama saaxiibada aan leeyahay ama faamilka waxaa ka mid ahaa dad adiga qof ka mida asxaabtaada ma jiraan qof lagu tilmaamo qofkaan nasiiblowga wuu nasiib badan yahay example waa dadka uga badan qof la yidhaahdo aniga dadka noocaas askaaan jira haddana markaan yaraa sida caadiyanba weligey maxaa yeelay gurigeyna iyo faamilkeyga hadda ka hor ma dhicin qof maxaa lahaa ii sheeg fanaan kasoo dhex baxo ama farac iyo film ma lahayn anigaa faamilkeygu bilaabay waxay faamilkeyga dhanka markii laga fiiriyo waa culumo dhanka hooyo markii laga fiiriyo waa xoogsato oo dadka had adag waaye ma ahan dadkan fan iyo waxaas maxaa lahaa shuqul iyo shaqo midna ku leh markaan yaraa waa markaa heeso ama fanaan ku heesaya aan ka daba heesa waxaa la dhihi jiray warkan hadduu weynaado wuxuu noqon doonaa fanaan bal ku fiirsan marka dadkii afkoodii waa dhihi jireen laakiin aniga qalbigeyga kuma abuurnaan jirin markaan dhalinyarada ahaa oo aan qixi kasoo laabanay nolosha xoogaas kasoo hagaagtay magaaladii ay dagaalkii iyo dhibaatadii kala joogsatay hooyaday soo badatay xamarayna keentay hooyaday way shaqayn jirtay intii hore oo dhan markaad xamar timaado waa goorma wallaahi marka aan xisaabiyo waxay noqon kartaa 29 ama 8kii waxaan joogay halkaa no 29kii noqon kartaa marka adiga ilaa iyo 2011 waxaan u malaynayaa waxaan la shaqaynaya hooyaday oo markaas maxaa lahaa ii sheegay oo shidaha geli jirtay aan la shaqayn jiray xamar bay hooyo shidaha ku geli jirtay xamar ku geli jirtay marka hooyaday caawin jiray oo waxaan ahaa aniga dadka hadda iska qoslo dhasha ahay marka hooyo markaan u imaaday oo inaan la shaqeeyaan bilaabay waa shaqadeedu way kulaasha lacag badan ka heshay oo maxaa yeelay dadka iyadoo hooyada aniga waxaa waaye farxadda iyo qosolka iyo xoogaha dad la dhaqanka hooyaday ka keenay oo hooyaday fantastic waa miss women waa dadka shaqada badan oo aftaha kale ah bulshada markaas ay ku dhex jirtana ka dhex muddo oo loogu jecel yahay noqotaa mar walba meesha tagto dadka marka marka aniga imaadayna maadaama ay lahayd macaamiil badan macaamiishii aniga waa isfahanay marka aniga saaxiib la qabatay rag iyo dumar kaas macaamiisheeda ahaa ilaa iyo 2011 dhammaadkeedii ama 2012 kala galaya waxaan bartay fareen samaystay oo waxaa jirta xaafadda jiray iskool bulsiga halkan dadka marka xaafadii aan saaxiib ku yeeshay saaxiibo dhowr oo adiga 5 gaaray waxaan ka mid noqday saaxiibadii oo waa meesha aan ka noqon doono fanaanka waa meesha laga qori doono laga program doono marka maalinba waxaa dhacday anagoo wada joogna maxaa la ishay aniga iyo saaxiibadii yaa waxaa xasuustaa sida saxda ah u sheegi doonaa insha Allah hees la yiraahdo dhagdhag dadka hadda ma aaminayaan farxii fiska leedahay wiil Allah u naxariista dhaxla dhaho telefoonkiisa iga tagay telefonkaygu qaatay kiisaa qaatay simkaarkiyaan kala bedelay telefoonkaan oo saan u baarayo waxaan ku arkay heesta wadnahay dhagle dhag heesta ku arkay marka aniga waa heesta waa aqaanay ha dhageysana islahay haddana waxaan istahay balaaya aayaladda basarto bal dhegeysaa islahay heeskan maanta kaligayaan maxaa heeska markaa dhegeysta muusiga kaliya waa yaabay waa ku soo celiyey maxaan islahay bal muusigan la qaad heeska waa la qaaday waa la dhameeyey waa ku soo celiyey waa la qaaday waa la dhameeyey waa aamini waay maxaa yeelay weligay ma arag muusig oo eber ah iyo maxaa la ii sheegay classic asagoo ah oo lagu heesay weli ku meys markaan ku heesay wiil mahad la dhaho waxay saaxiibana waxaan dhahay mahad oo sheekan ku hayay matay markuu yimid waxaan dhahay heeskan waa muusig ah waana qaaday bal iga dhegeyso wuxuu yidhi hees awaana aadan oo gobolada maxaa la ii sheegay ku amaanaya oo muusig ah anigana hayay qashida وعوالة هذا هذا صاحب أنا هذا وولالكي صاحب كي لله تعالى وعوالة هذا وعلى وجه هذا
ولا السلام ولا يقول كان ما شاء الله قفان في عمل شيء سنوات أول هذا ضاونا يسوي والله يعني adiga friend leh halka waan ku dukraya marka heeskeena sawaan boosaasay maxaa la isticmaalo heesta oo gobolada oo dhan Soomaaliya lagu tirina wuxuu yiri annakana maxaa daare heeskii labadii waa isna wiilku wuxuu waday telefoon fiican wuxuu yiri heeskan telefoonka heeska ka daarina anigana wiilka aabisa marka abwaan xaal cadoodu maalin wuxuu yiri telefoonka kan heeska ka daarana telefoonkan recordingkiisu fiican yahay وقبلنا وحسبنا وكل نعطى وقلنا هاي وقبلنا لبعض التلفون أصلاً وقرأت سكوت سارنا مركز أصلاً سكوت سارنا هي كدارنا من الريكوردينج كي عمفرد سامر كل سكوت سارنا أنا كنا محس مركز هاس كل سارنا وهي أنا هاس وقلنا عن حال هاي الشيء عن حال كل يوم فيكسر بحر السكر وهي وقلنا واحد أنا عادي وبكرة أريد أن أدرسه تشوف ما أنا ولكن محمد وابد تكون في ربيع توكي دمانكين تبيع قليل يعني تدرس التأسيسين تأمين على الأرض إن شاء الله وأنا حاول إني حوالي فنكا في عينها بتكلم في عينها لو طارت لبنان أبيه بأبوانك بحكي ترسيها كحلي وبوليستا markuu wuxuu yiri markaa waxay qaban doonaan dhalinyaro oo codka maxaa la isha codkooda tijaabinayo hadii ay dhalinyaradaas soo baxaan oo guuleystaan waxaa laga dhigi doonaa fanaaniin qarameed oo waa la qarameyn doonaa adigana markaas jaanis waxaa heli doontaa hadii la yiraahdo adiga yani big chance waxa halkaas kaga soo bixi doono waa ku doontina fanaan noqoto waxaan dhahnay waa nin waalidkii oo arrintan dadka kale waa iska fiftimaayeen ma rabina fanaan wuxuu yiri adiga isbuuca ka dhiman arrintaas markii la balan qaaday ka baroobay sida la yiraahdo waa bixin aniga xitaa dad oo kuleysay waa iska baroobeena waa iska soo baashaan iska soo biso kadibna waa iska soo noqonayna hay'adda ay ballamad maalintii markii la gaaray waa baxnay waa libisanay meeshii aan tagay ilaahay nama cadaabay waxa dhacday waxaan ku joognay meeshii baroobada nagala qaaday weeraan 40 dhalinyaro dadku leh فنانا نحن نقول هالك سوي وحكم من الضد ميكروفون كبركين كان بعرّا ومصلحي كسر حالنا فينا أنا طبعا فينا وان قرين وانا قاني سيد الله السقو سيد عالي الموسيقى وعلى قرصة كريم لكن أيه قد وحيد معايا مسكين بدين وفناني مدي واحد هذا كده نوري كتونا تسكول عمل ABC إلا بالله بعمل يبوك بعده inay bartaan marka dhalinyaradii oo dhan markay dhamaatay aniga marka waa ugu yaraa xilligaas waxaa la yiri markii qofkii ugu dambeeyay ahaa sax dadkii oo dhan xitaa madaxdii way xanaaqeen magaca dira dhalinyarada fanaaniin fiican oo keena markii maxaan dhahay waa aniga xalay problem markaas waxaa la yiri ma adiga uma problemay because of dadkan ka waaweyn oo ka qurquruxda badan baa maxaa la ii sheeg soo bixi waayo fanaaniin noqon waayo adiga meesha wax ku isku yar baa tahay oo dhalinyaro ah oo iska bax magaalada iska wiilkii markaa saaxiibada yahay baa waxa ku furtay abiis baagwana abiis intuu yiraahdaan saaxiibkii probada laga qaadaa saaxiibkii uu qatar waxaan dhan meesha joogo waa hadii saaxiibkii probada aan laga qaadin maanta la sameeysto waa kala waa sagaal wuxuu yiri bal wiilkii maadaama saaxiibkiisa hallo okay waa qosol ومجعي يا مقرب حالي راد بحث مصلحة كر مصلحة مرجع قرر أنا قصلا يا مصلحة إسكر كر بحاجة لك كرسولي عالي يسي عالي كرسولي طبعا بحاجة لك مرجع سنتكور رسينا وحان كم إذا هذا اللي يرضى دانزي عيارته حافظه محله شيء جايش مركز كاي كم إذا مركب مصلحة هاني ضدها له قبل نوع عساك يزدي وحاد على ومكفوك يعني يقول شيء موسيقى وعشارتي heeskaas aan xasuustaa ku galay barobada waxaana heeskaas muusigiisii waa la itumo waxaad aniga aan barobada ku soo baxay way aan dadkii ugu aamin marka waxaan ku soo gashay barobada waxaan ku soo maray batalali odare markii heeskaas aan ku galay markii laga xal badan waxa soo baxay natiijadu waxay noqotay
natiijada anaa lambar wan noqday markaa lambar wan noqda laakiin maxaa la yidhi dhammaan dhalinyarada waa la qaatay oo maxaa la sheegay waa la qaatay qof laga tegayo ma jiro waa tababaraa loo furi doonaa lambaraa la siin doonaa fanaaniinta halkan ay ka mid noqon doonaa waxaa kooxdii waxaa ku jira 2 sano oo waxaa ku jira 2 sano marna tababaraa noo socday marna maxaa la sheegay fanaaniin caadi ah marka waxaa dhacday weligay kooxdaas ayaan ku jiray baartisool wax la yiraahdo waxaa jira kooxda markay heesayaan dhammaan qof ka mid ah soo baxay oo maxay anaga madaxda heesi jirnay boosti madaxweynaha ra'iisul wasaaraha dadkaas maxay anaga qaran baa ahayd marka waxaa dhacday kooxda markay halka waxaad ku biirtay fanaaniinta booliska fanaaniinta booliska ku biirtay marka askari miyaad ahayd mise fanaan baa ahayd والله هذه قف هالكاس قالوا تصوير عسكري هاي قف عسكريين فنان من قوة المحيط وحنا قرر مرتب له ونوع عسل هذا كم يجيو كده عليه بس كده لكن مركز واحد وحد عليه مركز وحد عجزتي قف لما كيسان وكانوا كوكي سي بديه قف باجري كسر نحب حاجة ما راح نقول طول شو استعجل هذا يدي والله ما هاي قف كلا صوب حد صوب الله من قوة حسن وليه قف حسين في بعد صوب حسين maxaa yeelay waxaa lagu yaraysanayay da'da markii laga eegana way yaraysanayaan da'da kale maalintii ugu horreysay oo probada laga qaadayeen waa way arkeen codkii oo yani way kaxsanayeen maxaa yeelay dhalinyarada qaar bay intay heeso u dhiibaan intay xafid waayeen aniga intay imaadaan ku xafidsiinayaan hortooda aan leeyahay sidan turku wax la yiraahdo codka macaanis la yiraahdo jirto turkada ka soo wax walba sida yihiin aan u sheegay aniga qofna iima dhiibi jiray anna waxaan iska ahaa waa iska afgaabnaa sideeda banaan oo dadka iska xishoodka badana qofkaas haddana waxaan ahay dadka dabeecadda leh in wax loo garda jeclo inay dadku wax ka diriqsadaan aan naqon marka qof aan ah hadduusan qof ayna soo garan anna ma kala jeclaan jirin waa meesha iska waxaa dhacda marka dabeecadii oo 2014 ka dhamaadkiisii waxaa dhacday abwaan oo adeerkii ugu aadanaa allah u naxariistaa buu geeriyooday maxamed macalin heeskii ugu horreysay ninkiisii ahaa yaa waxaa la yidhi wiilkaas waa dayax baa la yidhaahdaa waa arkaawiil waa wiil dhalinyaro ah marka waxaa la yidhi adeer baa u tahay faamis baadiye wuxuu yidhi igu yeer wacay balse tahay waa fiicanahay faamilkaaga ahay baa oo aabba ii sheeg oo aabba u sheegay awowe waxa dhanaa u sheegay واسبحني مركز البحوية فاهم كيف صح حفظنا في البداية أنا كيف أسعنا صوبح هذه راح ماشي عمل كوسو يستعمل كم كيسو قصد مك حافظ وتقنا يا حاجة مسألة يا بليو ومشاكل جو حس كم قانفع حس كيف قاعد والله ده حس عنده أو حس كسان أو قيمة بدن أو معاك بدن هالكيك كانت أديك مالي حوري أديك مكو قناع سبحان الله والله ما كنا قناعة ودافتان هالشيء كذا مركز حيري قاضي هسكان هذا هسكان يسوي ميو قاضي يسوي لي بقاضي وسوي ما وحو ها لكن اسكو أبوان وها ألبنو يشتغل ليه هاي كم ده هاي تيست أوكي لكن هسه وقرن الله قاضي بيسمى كاسة ما نيجا قاضي أنا أوريجينال لها سجان السي يريد الحين كاسة اسكا عد كان السي أوريجينال أنا قاضي وقف يقول لي قاضي ما اسكال أوكي أنت إلا حين جالس لقى جاري وذاك يكرت وواي قف حاسي أما قف حاسي كرت محاد على حاسي واضحي وحن سي عقود دمسترة عيدنك أو $100 لقى حن سي $20 كم بدهم وقعتي موسيقى بصوتي حدنا لما بالمية مسدح بالأفراد بالكذب حدنا وحنا بس $100 كله $10 كم ده عاد كنا كسر دوتي لكن كسر يفسدي أو محل أي شيء $100 لكن كسر يفسدي وأنا عاد كي يستنى كسر دوتي حق اللي قصة قاضي أو $100 actually codka marka laga tumo lacag laga qaadaysa هذا هو كويشن oo aan music ku tumay waxay ahayd $20 music heeskaas la igu tumay $20 oo musicaas la igu tumay $100 ka bixi $80 kale waa isticmaalay ana sida caadi iska isticmaalay kadib way soo gudbay lacag kale
waan waayay lacag kale